xujada inaynu oognaa oo dadka diinta barnaa labada mid un bay noqon, ama way islaamiyo diintay qaadan, ama aakhiray cudurdaar waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa aanay cudurdaar ka helaynin. laakiin waxaynu u baahanay inaynu kitaabkan fahamno marka, maadaama isaga loogu talagalay gaal iyo muslimba in lagula hadlo, wax loogu sheego, wixii aadam dhalay in lagula hadlo iyo wixii jimba ka tirsanaa. kitaabkan waxaynu u baahanay asalka ah inaynu dadka u dhigno. isagaynu ka helaynaa mas'alo kastoo layna weydiiyey jawaabteeda, laakiin waxay ku xidhantahay madaa fahmina. inta aynu ka garanaynay ku xidhantahay jawaabtaas aynu kala soo baxayna. aqoonteennu intay gaadhsiisantahay aynu kitaabka u leenahay. kaasi waa qodob koowaad aan tilmaamayo. diinta inaynu dadka barro waa xujadii nebi maxamed loo soo dhiibay ee ku oogno, xataa kaan rumaynaynin inaynu xujada ku oogno. waayo qur-aanku wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay aakhira ambiya inay imanaysaa cidiba la socon, ama midi la socdo, ama laba la socdaan. maxaynu odhanaynaa ambiyadaasi may guulaysanin miya? maya, ambiyadu shaqadii loo diray way qabteen. oo waa maxay shaqada loo diray? shaqada loo diray waa dhowr mid uun inay noqoto. inay xujada markay dadka u sheegaan inay dadku rumeeyaan, kuwa waxaa la yidhi taskiyatu nafsi iyo tacliim bau sameeya. inay tababaraan oo naftooda tahiraan oo waxyiga baraan oo diinta baraan. oo kuwa kalena waa iqaamatu alxujati calayhim, aakhira inaanay cudurdaar helin. waayo nebiga kan shaqadii loo soo diray hadday raaci waayaan xujadu ku oogay, aakhirana cudurdaar ilaahay kama helayaan subxaanahu wa tacaala. wuxuu nebigu qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya cidna inaanu cadaabin, wamaa kunaa mucadibiin xataa nabcatha rasuula. ma cadaabna cidna inaan rasuul soo diray. rasuulkan haddaanay rumaynayn maxaa fircoon ilaahay wuu ogaa inaanu rumaynayn, maxaa loogu soo diray muse inuu xujada ku oogo. fircoon aakhira inaanu odhanin waxba aniga ima soo gaadhin iyo waxba garan maayo inaanay odhan. idan xujada inaynu oognaa oo dadka diinta barnaa labada mid un bay noqon, ama way islaamiyo diintay qaadan, ama aakhiray cudurdaar waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa aanay cudurdaar ka helaynin. nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam gaal baa u yimi, ay carabi u soo dirtay. waa gaal loo soo diray inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diinta ka saaro. aduu ka fiirso, cutba bnu rabiica abalwaliid waxaa loo soo diray inuu nebi maxamed diinta ka saaro. dabeetana nebiga intuu yimi proposals buu la yimi. niyow haddaad waxaan doonayso waxaasaanu ku siinaynaa, haddaad kan doonayso kaasaanu kaa dhigaynaa, haddaad kan doonayso, laakiin dee ilaahyadan iyadan iyo waxaad warkan aad ka sheegaysaa dhaaf. marka wuxuu wadaa in compromise diinta laga galo, laga heshiiyo, oo isaga iyo nimankii quraysheed negotiation ay wada galaan, oo nebigana la siiyo wixii uu baahan karo. haddaad boqor doonayso boqor baa laga dhigayaa, haddaad xoolo ku doonayso waxa kan annagaa ninka ugu xoolo badan kaa dhigayna, haddaad gabdho doonayso inanta ugu fiican baa lagu guurinaya. yacni wixii maadiya aad rabto ee nolosha ku saabsan, you will get it. laakiin waxaan u baahannahay uun de inaynu masaa'ilkan ka wada hadallo, aad ilaahyada iyo baabkan cayda ka dayso. nebigu waxa iyadoo loo akrinaya u dhegaysanayay, kuma odhanin war bal waxaa gaalkii wuxuu ku hadlaya day gaalnimadaasaad ila timi, kuma odhanin. ee wuu dhegaystay. markuu dhegaystay uu ninkani warkiisii gaalnimada ha dhammaystay, nebigu uma jawaabin markiiba. wuxuu ku yidhi afaraqta yaa abalwaliid, warkii ma dhammaysatay weli mise waxbaa kugu hadhay buu leeyahy. yani isagu weli rabaa inuu jaan siiyo. afaraqta yaa abalwaliid, warkii ma kaa soo wareegay buu leeyahy, hadalkii ma ka baxday, ma dhammaysato? markaasuu yidhi haa. markaasuu nebigu aayad qur-aan ku akhriyay. suurad suwarka makiga qaybteeda hore ka mid ah ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku akhriyey. suuraddii markii uu dhegaystay ayuu nin carbeed afkana garanaya buu hayay, wuu isbedelay. dabeetana nimankii carbeed markuu noqday waxay dhaheen wallaahi rabiica bnu cutbata bnu rabiica sidii uu inagaga tegey si aan ahayn buu la soo noqday bay dhaheen. ninkii aynu diray warka aynu ku diray ma aha. maxaan qisadan uga dan leeyay? qisada imaam alalbani wuu taxsiiniyaa fii siiratihi. waxaan leenahay waxa weeyaan
qofkan inaynu dhegaysano bal horta waa ibtilaysan yihi dhib baa haysataa laakiin mashkilaadkiisa kan iyo waxaan madaxiisa ka guuxay iyo waxaanu ismoodsiiyey ama waxaan loo akhriyay inaynu ka dhegaysano waa mid labaada inaynu ogaanana xiwaarku dee qur-aanka ilahay wuxuu inoogu sheegay ambiye xataa ilaahay wax weydiisanaysa waid qaala ibraahiimu muxuu nebi ibraahim yidhi rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta ilaah waxaad i tustaa dadkan dhinta bal sidaad u soo noolaynayso ama nebi muuse inuu yidhahdo ilaah waxaan rabaa inaan ku arko idan su-aashu waxay doonta ha ahaato waxaynu u baahannahay dadkan inaynu dhegaysanno oo qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa gaalo badan oo xiwaar lala sameeyey qaar wax diidanaabaa ilaahay wuxuu yihi qul waxaad ku tidhaahdaa ara'aytum maa tadcuuna min duuni illaahi arunii maada khalaquu min alard am lahum shirkun fi الsamaawaat iituunii bikitaabin min qabli hada aw athaaratin min cilm in kuntum saadiqiin ilahay wuxuu leeyahy waxaad ku tidhaahdaa war bal waxaan aad baryaysaan ee cibaadada ula imanaysaan itusiya dhulkan waxay ka abuureen maada khalaquu min alard am lahum shirkun fi الsamaawaat kownkan dhana sidan u dhisan ma qayb bay leeyihin ma shuraka ilaahay ku leeyihin iituunii bikitaabin min qablu hada kitaab hore waxaan ka warramayo sidan ku doodaysaan sheegaya hadduu jiro keena aw athaaratin min cilmi ama raad aqoomeedoo waxaa sheegaya hadduu jiro keena yani islaamku cilmi ma diidana laakiin ilxaadku cilmi maaha waa shubahaad laysu geegeeyey saasi awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa xiwaar in lala galo kuwa waxa kana aaminsan ilmahaaga ama ka kugu dhow ama kan xanuunadani ku dhaceen markaad ka dhegaysato wuxuu u baahan yahay inaad maagina haddaad adigu aqoontaa leedayna inaad u jawaabto haddaanad aqoontaa lahaynna inaad u baadi doonto tabiib kaloo daweeya ilmaaga xanuun caadi markuu ku dhaco dee haddaad anigu dhakhtar ahayn oo daweyn karan in dhakhtarbaod la raadisaa soo maaha yaa dhakhtarkee fiican baad tidhaahdaa iyo takhasus wadneed yaale iyo waad waraysi tagtaa adigoo raba ilmaha inaad jiradan ka daweyso fakadalik tanna waa jiro kale uun haddaad u geyso cid waxa khabiir ku ah inay labadoodun u dhex ahaato aanad sheegin inaad u dayso isaga iyo tabiibkiisaasi waayo lagama yaabo dee intaad maalin u geyso inuu fuxuu ku yidhaahdo dabeetana u kaco maaha suurtagal waa adagtay qofka kani shubahaadkani waa ku biireen marka wuxuu u baahan yahay muddo in xiwaar u furmo labadooda tan oo masaa'il badan maalinba mid laga doodo oo maalinba mid oo waxaa laga yaabaa bila inay qaadato laakiin bila kadib inuu qancin karo haddii la waayo waxaan cid iska xil saarta oo wax bedasha oo wax dhigta oo dadkana ilaalisa haddii la waayo saddexdaa guruubaan imika idiin sheegaya unbay ka mid noqon doonaan saddexdaa guruube trendka ah aan leenahay waa trendiska socda ayuunbay ka mid noqon doonaan in ilaahay dafirta in qoomamka aan la garanayn ku biirta in daragga iyo waxaa ka shaqaysa noocaas unbay wakaan doonaan waxa quray ku badbaadi karaan dadkaynu u nimin aynu ku badbaadin karnaa waa inaynu diintan sheegno inana isu sheegno kuwan aynu u nimina aynu u sheegno oo ilaahay kitaabkiisa dadka ugu yeedhno wax kastoo xanuunoo jirana ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxma lilmu'miniin qur-aankaasi wuxuu u yahay dadka mu'miniinta hudan wa shifaa shifaaءun lima fi suduur laabta waxa xanuun galo oo dhan midda weeyaan qur-aan baanu soo dejinnay baa ilaahay leeyahy caafimaad wax laga caafimaadana cuquusha iyo qulubta ugu fiican haddaad labadaa ka waalato waxba nolosha kale ma tarto dhadhan male nolosha kale dad balaayiin haysata dhadhan male noloshu waxay dhadhan leedahay markaad labadaa ka nooshahay
ختاما للدرس dhibtaasaa jirta dawadiina ilaahay kitaabkiisay ku jirtaa labadaa wax baynu u baahanno taxsiin inaynu samayno marka hore badbaadinno intaanay waxaas ku dhicin iyo marka labaad oo cilaaj fiican inaynu samayno sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasallam